بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ملار يدعي في منيسمك وحي البابا الشيخ dunida aynu maanta ku noolnahay waxaa isdhex mushaaxaya afkaaro gudcan oo ka soo socdaalaya dhanka reer galbeedka. afkaarahaas way dabada ka riixayaan wadamo, ururo iyo shakhsiyaad. abwaan hadraawi waa kii lahaa isagoo ina dareensiinaya khatarta ay afkaartaasu leeyihiin. shil baa dunidii ka dhacay, daacun halisaa ku fiday, duufaan sibaylaa la tegay, doofaarada aan gudnayn, diinaamuhu gaalku dhalay. maxay hilib faafiyeen, maxay sama duulsiyeen, maxay godob daacsadeen, maxay dembi xoogsadeen, maxay dabar xoogsadeen. dunida aynu maanta ku noolnahay ninka cad ayaa la yidhaahdaa dhaqaale ahaan iyo fikir ahaanba way maamulaan. dunida waxay ku maamulaan baa la yidhaahdaa 4 shay sida uu sheegayay doctor cabdalla النفيسي. afartaa shay dunida ku maamulaan waa kow waa waxa la yidhaahdo hubka. iyaga ayaa sameeya hubka ugu badan ee dunidu maanta isku gumaado. iyaga ayaana sharikadaha ugu badan ee hubka sanceeya. adduunyada inay nabadi ka dhacdo markaa iyadu kolleyba daliguma jirto, way ka xanaaqaan. nabad baa naas laguga leh. shayga labaad ee dunida ku maamulaan waxa weeye waxa la yidhaahdo hubka. marka laga yimaado waa shidaalka iyo cuntada. cuntada ugu badan ee maanta dunida cunto waxaa soo saara reer galbeed. sharikadaha ugu badan ee shidaalka soo saara, kuwa dhoofiya, kuwa nadiifiya, kuwa suuqeeya waxaa iskala maraykan. wadamada muslimiinta laga soo saarana in yaroo lacag oo faraguudkood baa loo dhiga. shayga saddexaad ee dunida ku xukumaa waxa weeye waxaa la yidhahdo alqawaaniin duwaliya, xeerarka caalamiga ah ee maqasheen ee ka soo baxa qaramada midoobay. dunida reer galbeedku waxay u diseen xeerar iyaga ka tarjumaya falsafadooda iyo aragtidooda, laakiin ay dunida kale ku sanduleeyaan inay qaataan. waddanka iyo dowladda qaalimidana ay ku magacaabaan addawla almaaliqa, dowladda fallaagowday. shayga ugu dambeeya ee ay dunida ku xukumaan maanta reer galbeedku waxa weeye warbaahinta iyo saqaafadda waxaan la yidhaahdo, oo dee iyagaa leh 4 wakaaladooda dunida wararka u qaybiyo reer galbeed weeye. 2 shay oo 4 xadhigay dunida ku xukumaan. 2 shay oo ka mid ah waxay u adeegaan in la faafiyo afkaarta gurracan, waa xeerarka caalamiga waxa la yidhaahdo, iyo warbaahintu. warqad baan akhriyay qaramada midoobay ka soo baxday oo leh maanta dhagahan ka wasakhaynaya iska dhaale ragga laga roonayaasha ah cidda xaqooda meel kaga dhacda waxa weeye waxay ku tumatay xuquuqul-insaanka. abshir bacad loo la yaabay xuquuqul-insaanka nasakhanaya reer galbeedku raadinaya wuxuu yidhi ragga xaaska laga dhigo miyaa xuquuqul-insaana dumarka yaan la kala xigi, miyaa xuquuqul-insaan xalwada diin xaalka faamuliya xuquuqul-insaan. haddaba waa maxay feminism? in badan baad maqasheen ereyga feminismka. waxaa la yidhahdaa waa erey bixin asalkeedu ka soo jeedo faransiiska. waxaanay bilowday baa la yidhahdaa qarnigii 17aad. waxaa la sheegaa in ciddii ugu horeysay ee isticmaashay ereyga feminism ay ahayd gabadh la odhan jiray Charles oo noolayd 1772 iyo 1830. maxay ku qeexeen feminism? waa maxay feminism marka la weydiiyo? waxay yidhahdeen feminism waxa weeye dhaqdhaqaaq u dhaqdhaqaaqa xuquuqda haweenka iyo inay haweenku la sinaan ragga. iyagu waxay kale ku qeexaan waa difaacidda xuquuqda dumarka. laakiin ogaada waxaa lagu kala duway waxa weeye xuquuqda la sheegayo. aadanuhu way ku kala duwan xuquuqda yaa bixiya iyo qofka xuquuqda helaya. walaalayaal marka ayuu ku noqono halkuu ka soo unkamay fikirka feminismku, waxa uu ka soo unkamay wadamada reer galbeedka, gaar ahaan yurub. yurub waxay leedahay taariikh ka duwan taariikhaha ay dadka kale leeyihiin, oo waxaa ka mid a sida ay dumarka ula dhaqmaan markay yurub ay kristanka ahayd iyo marka ay kadib ay kristanka qaato. dumarka si aad u liitay ula dhaqmi jireen. matalo kale waxaa la yidhaahdaa yoonaankii hore waxay aaminsanaayeen dumarku inay yihiin geed sunaysan oo ay tahay laga dheeraado. romanskii magaalo marko la yidhaahdo ku taalo qarnigii 5aad waxay ku qabteen
مؤتمر علمي السنة يمكن يسمون ميوكله وإليه دمر مروح بيليه مسين وبلاغه وهذا نوعه يهنين ولا يسمون كان دمر مروح بيليه مسين وبلاغه markii ugu dambeysay waxa ku soo gabagabeyeen dumarku ruux male sidoo kale Faransiiska waxa lagu qabtay shir istisaas oo kala kadib kacdoonkii wixii la oran jiray kacdoonkii warshadaha ee Yurub ka curtay qarnigii 19aad bilowgii dhamaadkii qarnigii 18aad dadkii reer Yurub waxay ka soo galeen miyigii magaalo waa dhacay warshadii waxay qaateen shaqaale jaban shaqaalihii jabnaa ay qaateen waxa ka mid ah dumarka laakiin dumarka iyo carruurta iyaga waa la reebay dumar carruurtu waxay heleen qolo doodooda laakiin dumarku ma helin gabadha mushaharka ay qaadatay iyo ninka mushaharka ay qaataa uu kala hooseeyey oo waxay lahayd dumarnimadii ku hooseysaa halkaa waxaa ka bilaabmay halkaan doonayay inaad sheekada feminismka aad kala qaadaan waxaa ka bilaabmay dhaqdhaqaaq haweenku ay hogaaminayaan oo xuquuqa raadisa oo odhanaya waa in ragga iyo la simo mushaharka ragga iyo mushaharka dumarka la simo dumarkaas xuquuqda ay raadinayaan in badan oo kamid way ku guuleysteen مثلا كله استراليا يعني ده استراليا يعني سويسرلاند كل يسقال بقول يكوي توات كيف على وكالة إنه يدوم كل عضين كلام ما هاي نوع عضين كلام فرانسيسكا كل يسقال بقول شيء أفرت كيف على وكالة إنه يدوم كل عضين كلام كل دجال كلا بدأ يدوم كل عمال إنجليز كل يسقال بقول سيد لا تكيف على وكالة يدوم كل عضين كلام marka waxaan maqlaysaan in oranaya xuquuq haweenka dadaalina waxay marka hore ka soo kama wareer galbeedka halka sheekadu markay marayso ee dhaqdhaqaaqa haweenku ugu doodayo xuquuq asaasi oo dumarka reer galbeedka ka maqan arrintu way isbedeshay waxay isu bedeshay 1960 markay taariikhdu ahayd ayaa isbedel dunida ka dhacay isbedelka dunida ka dhacay gaar ahaan dhaqdhaqaaqa haweenka ku dhacay waxa isu bedelay falsafad iyo fikir doodaya oo ku doodaya haween inay dulman yihiin haween maxay ku dulman yihiin hooyanimada ku dulman yihiin haween maxay ku dulman yihiin inay guursadaan ku dulman yihiin ولذلك فيمينيزم هو حلوق يا لبا قيبات ليبرال فيمينيزم iyo waxa la yiraahdo radical feminism liberal waa qolada u doodaysa gabadhu inay mushahar heshay inay shaqo heshay waxyaabaha inay hesho qolada u doodaysa qolada dambe waxay u doodaysaa haweenku waa inay la simaan qayb kasta nolosha kamid ah ragga waa inay la simaan iska daayay marka waxay ku doodaanba annagu midoo kale haweeneyda bedelay feminism kan dad waxay bedeleen maxaa qoysa waxay leeyihiin iyo gabadh isku bulshada waa qoys niyanin wax iska dayaana waa qoys gabadh iyo gabadh wax iska dayaana waa qoys hadda qaramada midoobay ku qeexdaa qoyska soo gender wax la yiraahdo gender ma qashay ama qashay gender waa maxay gender waxa weeye raganimada iyo gabadhnimadu waa shaqo bulshada loo hayo maaha shaqo qofka lagu qiimeeyo ولذلك waxaan doonayaa soo koobo afkaarta aan doonayaa inaan ka hadlo waa maxay afkaarta ay siin feminism waliba waxaan ka hadlaynaa qaybta radicalka ee imika dooda ayaan ka hadlaynaa ko feminism waxay ku doodayaan sinaan jinsiyadeed ragga iyo dumarku waa inay wax walba ka simaan halka aqliga saxda ah oo dhan iyo qof waliba nolosha kaalinta kaga aadan waynu ka soo waxay sheegayaan xorriyadda jinsiga gabadhu waa inay cid doonto la tumato cid doonto ma la samayso maaha wax sharciyeed xidhan maaha in leeyahay feminism waxay ku doodayaan hooyanimadu waxay caqabad ku tahay horumar ولذلك dumarku waa inay guursan leeyihiin aanay suuq iska marmaraan haddii hooyo noqoto bay leeyihiin ma horumaris ولذلك su'aalkan weydiinay inay gabadhu noqoto gaaraan hablaha inay gabadhu hooyo noqoto qof bani aadam soo saarto oo bulshada ay ku soo darto iyo inay injineer diyaarad noqoto ay injineer diyaarad sameeyay noqoto keeba qiimo badan iyaga qofka bani aadamka waxa kala qiimo badan inay gabadhu injineer noqoto laakiin gabadhu inay hooyo noqoto waa wax aad u diitay ku leeyahay feminism waxay leeyihiin oo afkaartooda ka mid ah xaq iska soo ridida ilmaha al-ijhaar waxa la yiraahdo in ilmaha la iska soo rido shirki ka dhacay qaahira 1994 go'aamadii ka soo baxay ay ka mid ahayd in ay feminismku ay soo saareen gabadhu waxay xaq u leedahay in ilmaha iska soo rido u fiirsada
jasiira net waxay daawacday 2019 caruurta la iska soo riday waxay galeen 16 milyan oo qof 2020 caruurta la iska soo riday waxay galeen 50 milyan oo qof 2021 waa sanad ka hor 70 milyan bay galeen wada ka akhrin kartaa netka jasiira way ku jirtaa cilmi baaristaas xuquuqda ay u doodayaan maxay noqonaysaa waxay ku leeyihiin xuquuq baan u doodaynaa kuwana waa lulaynayna waxaan doonayaa kale inaan haddaba hadalkayga iska soo koobo maxaa ka dhashay afkaarta noocaasa ee reer galbeedku ay faafinayaan waxaan doonayaa inuu tuso maxaa ka dhashay ma doonayna hadallo fara badan inuu ku wareeriyo hal mid baa ka dhalatay ayuun baan idinka soo qaadaya waxyaabaha ka dhashay afkaarta noocaasa feminismku ay ka mid yihiin waxaa ka dhashay koow qoysku inuu burburo dunida reer galbeedka waana sida inaga laynaga rabo waxaa burburay sidaa qoysku markuu burburay carruurtii baa la waayay bal u fiirsada cilmi baaristan nin baa jira la yidhaahdo Patrick Chen waa qoraa maraykana 6 madaxweyne ayuu u soo noqday taliyaha gaarka 6 joor buu isu soo sharaxay madaxweynenimada maraykan wuxuu qoray buug leeyahay geeridii reer galbeedka ninkan wuxuu leeyahay maanta waxaynu hortaagan u leeyahay xaqiiqo dhab ah oo aynu reer galbeed dabargo'ayo waayo uu leeyahay ma dhalno ummadaha horumaray waxaa lagu gartaamin inay dhali karaan bal u fiirsada cilmi baarista uu soo saaray wuxuu yidhi 1960 ninka cadi ee ku nool Yurub iyo Amerika iyo Canada wuxuu ahaa 750 milyan dadka dunida ku nool waxay ahayd 3 bilyan taas macnaheedu waxa weeye afartii qof ee dunida kor marayaba hal nin baa cadaan ah laakiin buu yidhi 2009 markii la soo gaaray 40 sano kadib dunidu way laba jibaarantay dunida 6 bilyan bay dunidu noqotay laakiin ninkii caddaa halkiisii u taagan yahay wuxuu ku leeyahay 2050 dunidu waxay noqonaysaa buu leeyahay waxay gaaraysaa 9 bilyan oo qof bay gaaraysaa laakiin ninka reer galbeed buu yidhi 100 milyan oo qof baa iska dhimaya wuxuu leeyahay wuxuu ku soo gabagabaynayaa cilmi baaristiisa weliba ogaada cilmiga bulshada marka laga sheekaynayo waxyaabaha ugu muhiimsan loo cugsado waxaa ka mid ah cilmi baarisyaha la sameeyo tirakoobyada wuxuu ku leeyahay Yurub way dhimanaysaa Yurub waxay bilowday inay dhimato waa markii la dabaqay afkaarta feminismka ee sheegaysa gabadhu inaanay hooyo noqon gabadhu inay ninka suuqa kula tartanto gabadhu inay waxa weeye kaalinta ay nolosha ku lahayd inay ka baxdo waxaan ku soo gabagabaynayaa walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala ragga iyo dumarka isaga abuurtay yaa ayuha annaasu innaa khalaqnaakum min dakarin wa unsa dada waa nagaa lab iyo dhadig baa naga idinka dhigan ilaahay ragga iyo dumarka wuu kala sarraysiiyey laakiin wuu kala duwan hadda halkaa u fiirsada ragga iyo dumarku ma kala sarreeyaan ilaahayna uma kala dhowaan gabadhnimana ilaahay kuu dhowayn mayso raganimana ilaahay kuu dhowayn mayso laakiin camalkaaga ayaa ilaahay kuu dhowaynaya man camila saalixan min dakarin aw unsa qofkii camal wanaagsan sameeyey lab iyo dhadig kuu doona ha ahaadee wuxuu gelayaa jannaduu gelayaa nolol wanaagsan u helaya intayna maanta halka fadhida khadiijo baynu la dhigan karnaa hooyo khadiijo cid la dhiganaysa halkana fadhida walidaalika waxaynu maanta sheegaynaa cilmiyan marka loo soo noqo bal u fiirso cilmiga la yidhaahdo physiologiga waxa weeye cilmiga ka shaqeeya qaabkay u shaqeeyaan xubnaha jirka laga bilaabo unug ilaa habdhis physiology baa la yidhahda waxa uu inoo sheegayaa in ragga iyo dumarku ay u dhaxeeyaan kala duwanaansho aad u weyn u fiirsada bal jirkaanu soo qaadan haragga raggu ka dumarka uu ka adag halka dumarku ay ka faat badan yihiin ka baruur badan yihiin jirka ragga waa wada garanaysaa raggu wadnahoodu culayskoodu waxa weeye ragga wadnaha raggu waa 280 garam ilaa 340 garam dumarkuna waa 230 garam ilaa 380 garam halkaa way ku kala duwan weligaas su'aal ma isweydiisay dhammaantiin mid ka dambeeyabaad maxaa raggu u qabtaan shaqo badan oo ka badan shaqada ama shaqo ka adag shaqada dumarku qabtaan yaani waad garanaysaa wadnahooda ka weyn wadnahooda oxygen ka badan qaata bal ka kaalaya maskaxda ay u nimaado
maskaxda dumarku maskaxda raggu hadday soo dhan Ismaaciil way xanay waxa ka hadlay physiology ku agtiin usulati kana hay soo dhan Ismaaciil way xanay maskaxda dumarku way ka yartahay maskaxda dumarka 150 tusaale ahaan ninka maskaxdiisu waxa weeye 1370 gram gabadhana waxa weeye 1225 gram kala jara 150 dumarku qaab dhismeedka maskaxdooda u samaysan yahay waxay u adkaysi badan tahay xanuunka ninka iyo xanuunka foosha u adkaysan kara ma jiro hormoonada ay soo deysaan maskaxda haweeneydu markay foolanayso ama markay la dhasho ay xanuunkii baabi'inayso rag ma laha dumarku waxay u fakaraan marka maskaxdooda laga sheekaynayo fikirkoodu u firiirsan yahay nimanka inantu iyadoo halkan fadhida ayay warkii saaxiibadeed ka fakaraysaa khayra meesha ka hadlaysa way la socotaa gurigii wixii ka dhacay way la socotaa markay guriga joogto xagga TV-ga bay ka daawanaysaa xagga nadariga bay kala socotaa xagga ilmaheedii yaraa bay kala socotaa laakiin raggu hal meel uu ka fakara aniga mid haddii ka yaab marmar waxana war yarkaad dumarku marka maskaxdooda laga sheekaynayo tafaasiish يعني إيه وحلا لفافاهيو أي مستحيل دوما هو سميسنت هدي مكا إن الله يقول كورنا ما طلعت شركي هلك كبعي إن أنت حراني سا ولا يقول ربنا عمال نفتي سمرايا وربنا بسيتي إسماعيل ويا نحن حي لكن في عنا 10 7 بجري لكن أنا كمان يقول كورنا ما طلعت شركي وأنا يوم فينا مركا الشيء حاجة مسكحنا مدونين غيره مسكحنا مركا الشيء حاجة يدو مركا كلا دواناشة وبحية وفيرسون حبوا حاجة مسكحنا حاجة حسوس كينتا وكجف يعني حاجة دو مركا لكن من سيدك ده لو حسوس دو مركا كجف يعني لكن كينين مركا نقطية حسوس حاجة كجف يعني دو مركا إنا بعد سمعني سا مركا سيكورنا سا بيرجينا وادي هذا الكائن بيرجي ما أركي مسكحة الواحد مركب بس واحد بس واحد بيجي ورا معي. لا بقى لا بقى كم ما يهرب والله يسكر بدي من وحدة شغالة يا أقوام تمرك اللي يقول ده بس يدوم بس يدوم كله دويني شغالة مركب هاي ما تبغى يجي إن واحد دنيا اللي بدي شيء نين قراية بتشيلا لا بني نعندهم لا بقى قراية بتشيلا بوجا أخري يعني بوجا واحد يعني المخ هل ذكر نوانسا مسكحة ما نبى بذكر بقى مستوى ما بدي بقى مستوى لا بني نوع أبو يعني نوع اللي بعمل هذا كوفي عن سيكولوجيا المسلمين هذا قريب بعدين مات دنيا يمشونه إلا بروف كريم بعد كرجل يدور بكل دوي ويدد بقى كل دولية إن أنا تشيل واحد يعني هذا ما يقبلني شغلة بعدين ما كرجل يدور بس بكل دوي دور كنت بدان واحد يشتغل شقوي كحيل توصل لين دت خلالنا بروف يسحبوا واحد يشتغل كالكارثة waxay kala ka shaqeeyaan shaqooyinka u baahan in la habeeyo iyo in xasuus dheeriya loo yeesho secretary dumarku shaqadaasi ugu wanaagsan raggu laakiin waxay ka shaqeeyaan shaqo kastoo gacanta laga qabto farsamooyin waddanka maraykan diraasad laga sameeyo waxay dhahdaan boqolkiiba oo nimanka ku doodaya dumarka ragga waa in lala siiyo boqolkiiba 99 bay lahaan bangiyada iyo shirkadaha rag baa ka shaqeeya ولذلك لو حلنا هذا مركزتو أي مام المطرب با كهري برك أيام ما نروح برشة حبلو مسكت هذا المركز اللي هو برشة النوعين في عين وحيكون في عين اللغة وحيكون في عين علم قبل شدة وحيكون في عين علم الاختار لماذا بالك لكن حيكون في عين حساباتك فيزيكا كيمستريكا علمية معاصرة واحد دور يرى ماذا عالم الجريمة marka la isba bandhigo ragga waxa doonaya inuu sheego inaan guriyo dooda feminismka oo oranaysa ragga iyo dumarku meel walba ka simi karaan ayuu bari taas oo loo socdaa diraasadda la sameeyay ragga iyo dumarka aftida weydiinaya waxa la weydiiyay ka warama baa la yiri ninba faqiih lacag ma haysto xaaskiis aad bay uga xanuunsanaysaa waa ku raacsan inuu farmasiga ka soo xado dawo رد وحيدين ها لكن دمر بحيدين ونيوم يان أودي سكر وبيجين فحيدين دمر وميان أودي وكسر وميان أودي من ويدست وميان أودي وبلا الحين سبوا حد يقبل لنا يكلمتنا
ولذلك هذا ما حد كبرنا مركز جريمة نقطة دعم يتوب لماذا يوحى هذا كبر ولذلك القرآن كبر الدنيا ذا كشاكين يتوب لماذا هذا يتوب والسارقة تقول توب يتوب دمود واحد دوري أول على يدنا الشيخ مثلا واحد على مريكا كي إنجليز كدراسات نبسميه طبعا كي إلى عشان يتوب كي الدنيا يتوب لماذا هل قبل ما كتشتغل واحد دوري أول أسكت سو كوبو هذا الكي أفر بلاد سو كوبو إنت على استدل مرين كو فيمينيزم ولما مركو قيبتا راديكال كاوية هاي يرانا إنسان هو ينمد وهوك قولكو وكفس الشرعي قريسا عدول إلا دالا إن حلال ودلالو بالديدين إن حلال ودلالو بالديدين وإن فيمينيزم بكي دوري إن دمركو أي فسهلان وحي حلالية إن المال يسكسوا لديكم أي حلالية وأنا يجد كل شركة قاهرة كدعي كل سلام كل يافري سلاشنكي أي أنت نقول علماء الإسلام كنا أدوي بالقيلين حتى علماء الكريستة كأي كقيلين إن ما يرون كلاهي بابورين يسكسوا marka feminism iyo qaybta radicalka ah ee imka ay hay'adu wadaan waxa weeye waxay beegsanayaan qiyamka ilaahay bani aadamka ugu talagalay labka iyo dhediga in uu mid waliba dowrka uu nolosha ku leeyahay uu qaato islaamku wuxuu leeyahay gabadhu mar waa hooyo sharaf leh marna waa inan dhowrsoon marna waa marwo xurmad taas oo way fahamtaan qodobka labaad aan doonayay inaan sheego walaal inuu weeyay laba qodob oo baahay haday Yurub reer galbeedku waxay soo dhoofiyaan afkaartooda qashinka laakiin afkaartooda fiican way haystaan weligii miyaad aragteen hay'ad leh waxaan idin barayaa sida diyaarada loo sameeyo weligii miyaad aragteen hay'ad idin leh waxaan idin barayaa tiknoolajiyada weligii miyaad aragteen hay'ad idin leh waxaan idin barayaa sida wax loo beerto laakiin waxay hay'adaha reer galbeedku wax ka sheekeeyaan gabadh baa la kufsaday iyo hablaha weynaan la gudin iyo wax noocaas ba ka sheekeeyay waayo iyo markaa Yurub waxay soo dhoofisaa kaarteeda qashinkaa bay soo dhoofisaa waxaana ogaataan ilbaxnimada reer galbeed saddex shay bay ka koobantay laba iska tuura midna ka qaata saddex shay bay ka koobantay caqiiday ka koobantay fikir uma baahna fikirka reer galbeed dhaqan bay ka koobantay waa dhaqan bulsho iska tuura laakiin reer galbeedka waxaynu kaga dayanaynaa cilmigaynu kaga dayanaynaa wixii cilmiya imika waxaan idin sheegay waa cilmi buug baa lagu tegayaa laab baa lagu tegayaa qodobka saddexaad aan doonaya inaan sheego waxa weeye maanta waxaan arkaa dad ma odhan karo gabadh muslimada ku doodaysa inay feminism noqoto waayo hadday tidhaahdo xataa aqoon ma laha waxaan doonaya inay yidhaahdo walaalayaal qodobka saddexaad afkaartu gaar ahaan afkaarta imika caalamka aad u buuxaysa waa xanuun safmareen dad akademiya baa tihineen xanuunku markuu safmar yahay maxaa lagu sameeyaa waa la tallaalaa dadka waa la tallaalaa xanuunkii baa la soo qaadaa dawooyin baa lagu daraa jirkaa lagu mudaa si hadhowta markuu jirku soo galo uu iska difaaco ولذلك أفكار السيدة قف كستو فيمينيزم قاطع أو قف كستو علمان نقطة ما أولنا ما تيجي مقنعين لكن وحنا أولنا إنه نطلع مدينا إنه نطلع دنيتنا إنه نطلع أو كطلع أفكار تسوق الوتيجا قدر كودا بيا كسوق الوتيجا هذا كي وحوي ولا ريال إذا كوي جرى ريال إنتين هل كان فرديا ينتهي مقلي طنطا waxaynu nahay aqoonyahanka muslimka ee ay tahay inuu ilaaliyo mabaadi'da islaamka kuna ilaaliyo bulshadiisa iyo dhalinyaradiisa dunida mabaadi' baa lagu loolamaya mabaadi' baa loolamaysa dagaalka dunida ka socda ma aha dagaal dhaqaale oo keliya ama dagaal bulsho oo keliya ama dagaal siyaasadeed oo keliya dhammaan dagaalada dunida ka socda waxay imika tusaale fumansiiniya ruushku muxuu Ukraine u weeraray marka laga yimaado inay jiyo siyaasi tahay oo uu diiday in NATO halkan soo fadhiisato laakiin waxa jira arrin xagga caqiidada jirta fikirka jirta oo maxay in liberaaliyadda reer galbeedku ay ku soo fido ruushka isagu waa reer galbeed laakiin dhaqanna fara badan oo Yurubta kala leedahay uu diiday ولذلك waxaan doonayaa aqoonyahankeena muslimka ah
inay dadkooda tallaalaan aqoon u yeeshaan fikirka waxaan idin sheegayaa waxba isku wareegin inaad buwaag badan oo fikriya akhriyaan waxaynu ku filanay afkaarta iskaga difaaci karnaa waa qur-aanka kariimka waayo insaanka waxaa la yidhahdaa insaanku ma tatawuro bani aadam waa bani aadam ilaahay maalintii ilaahay abuuray ilaahay maanta laba xanuun baa bani aadamka ku dhaca hadda halkaa u fiirsada laba xanuun baa bani aadamka ku dhaca الشهوات والشبهات قالوا حتى دقنك كغدا رب يطور waxa dhex maray fisqiyo waxyaabahaas iyo الشبهات قالوا حتى fikirka kaga dhaca labadaba quraanka daweeyay lidaan ilaahay wuxuu leeyahay fasbir adkayso inna wa'd allahi haqqun balaqaadka ilaahay waa dhab aakhiri la tabi inay xisaab jirto inay naari jirto inay jannada jirto waa xaq ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون يعني كو يريسني او هكا هبرني كو ان يقيت العين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته